tabintan waxaynu ku eegaynaa Trump wuu goostay dhaqaalihii uu ku bixin jiray amniga iyo horumarinta Soomaaliya maxaase ka dhalanaya Trump lacagtiisii waa jirtay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa si cad ugu dhawaaqay in gabi ahaanba la joojiyay balaayiin dollar oo Mareykanku ay dibadda siin jireen marka laga reebo Israa'iil iyo Masar aan la isku halaynin oo gacan dambe oo dhaqaale oo laga helo Mareykanka aysan jirin taasi waxay muujisay in Trump ka dhameeyay ballanqaadkiisii ahaa inuusan dhaqaale isaga bixin doonin meel ka baxsan dalkiisa Soomaaliya waa dalka saddexaad ee qaata kaalmo shisheeye oo ay reer galbeed ku baxshaan marka laga hadlayo dhinacyada amniga gargaarka aadanaha iyo horumarinta cidda ugu badan ee lacagtaasi bixinaysana waa Mareykanka hadda go'aanka Trump waxa uu saameynayaa Soomaaliya si xoog leh oo waliba lixaad leh xilli arrimaheeda guduhu murugsan yihiin sida ku jirta diiwaanka dawladda Soomaaliya kaalmada Mareykanku ay siiyeen Soomaaliya oo ay geliyeen dhinaca gargaarka aadanaha iyo amniga laga soo bilaabo 2006 ilaa hadda 2021 la soo gaaray waa lacag ka badan 3.3 bilyan oo dollar oo ay dheer tahay 3 sano ee ugu dambeysay oo kor u dhaaftay $1 bilyan taasoo aan ku jirin dhaqaalaha Mareykanku ay ku bixiyaan dhanka ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkiina dhaafay hay'adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka dibadda ee USAID ayaa la saxaatay dawladda federaalka mashaariic horumarineed oo lagu fulinayo lacag ka badan 68 milyan oo dollar balse hadda wax badan ayaa ka soo laabanaya aagan maadaama Trump go'aamiyay in gabi ahaanba kaalmada USAID la hakiyo oo la joojiyo isagoo eegaya in dhaqaalaha Mareykanku uu isku filnaysiiyo oo aan loo baahnayn in dibadda loo saaro Soomaaliya uma wanaagsana dhawaaqa Trump inkastoo ay Soomaaliya hadda ku jirto marxalad walaahow siyaasadeed oo jid iyo jiha midna aan lahayn 20 sano ee la soo dhaafayna wixii heshiiska lagu ahaa waqtigan muran xoogan ka taagan yahay gaar ahaan dhinacyada dastuurka doorashooyinka iyo midnimada guud haddana dhawaaqa dhinaca Washington ka yimid uma wanaagsana Muqdisho dhowdhina ayay dad badan sheegayaan in saamayntu ay ka dhalan doonto hawlgalka ciidamada sheeyo oo bila taageero dhaqaale marka laga hadlayo ciidanka midowga Afrika cidda ugu badan ee taageerada dhinaca saadka iyo dhaqaalaha ku bixinaysay waa Mareykanka inta uusan xafiiska imaanin Trump xukunkii Joe Biden way diideen inay bixiyaan qoondada uga soo aaday yaboha dhaqaale ee amniga Soomaaliya ay ku sugayaan ciidanka shisheeye waxayna Washington ergeygii hore ee qaramada midoobay u joogtay ku dooday New York in Afrikaanka looga baahan yahay inay joobkooda cunaan oo aysan markasta dhankooda soo eegin waa caqabad ballaaran oo hawlgalkan ilaa hadda saameyn xun ku yeelanaysa Soomaaliyana xaalad baylaha ayay suuragal tahay inay ku soo dhacdo haddii aan la helin kaalmada Mareykanka oo rajo badan aan laga qabin ciidanka danab walaa xoogan ayaa dul yaala 3,000 oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya aad ka waaminsan tahay oo lagu magacaabo danab waxa tababarka mushaarka saadka iyo xataa amarada qaybaha ugu muhiimsan iska leh dawladda Mareykanka oo u tababartay inay ka shaqeeyaan la dagaalanka argagixisada laakiin hadda Trump waxa uu qaba aragti ah in gabi ahaanba kaalmada ciidankan la joojiyo taasoo qayb ka ah mashruuca in la weyneeyo Ameerikada weyn aysan waxba ka galin sugidda amniga goobo iyo dalal kale sida ay xaqiijinayaan ila wareediye amni oo aad uga warqaba galka danab hadda saamaynta ugu xoogan ee dawladda federaalka wajihi doonta waa sida loo maareynayo ciidankan oo haddii Mareykanku ay go'aansato inay faraha kala baxdo ku soo dhici doona meel cidla dawladana ku noqonaya culays aysan si fudud u maareyn kareen sababtoo ah hore loogama tashan ku tiirsanaanta kaalmada dibadda ayaana Soomaaliya la aaminsan yahay inay ka dhigtay dal gacmaha ka xiran oo madaxdiisu xoolaysiga ay xoogga saaraan intii ay aadi lahaayeen in Soomaaliya ay isku tashato Trump taariikhiyan 2020 markii uu ka tagay xukunka Mareykanka waxa uu saxay wareegta madaxweyne oo amraysa in 700 oo ka mid ah ciidankiisa oo ku sugnaa Soomaaliya la soo daabulo taasoo la aaminsan yahay hadda mar kale inuu soo celin doono mashaariicda horumarinta Soomaaliya waa wiiqmayaana inta ugu badan hogaamiyaasha dawladda federaalka iyo maamulada koonfurtu waxyaabaha ugu waaweyn ee waxqabadyada ka dhigtaan kuna faanaan waa mashaariicda lagu fuliyo lacagaha kaalmada shisheeye inkastoo ay Soomaaliya qaadatay sanadihii ugu dambeeyay 5 bilyan oo kaalmo horumarineed badankeedna la geliyay koonfurta dalka oo aan xisaab celin laga haynin haddana sida gobolada dalku u yaalaan kama muuqata in lacagtaas la gashay sida dhinacyo kala duwan isku raacsan yihiin qaabka loo maamulo ayaa nooc ka fog daahfurnaanta maaliyadeed Soomaaliyana taas waxay ka dhigtay dal kaalmo ku nool oo haddana aan sheegan karin meelaha muhiimadda leh
siyaasiyiin badan ayaana aaminsan in dalkan uusan ku dhismaynin sidaasi kana kama karin dhaqaale shisheeye oo iyagu ay jaangoynayaan sida loo agaasimayo in magaca Soomaaliya balaayiin dollar sanadkii lagu qaado aysan dhaafin kooxo kooban waxa ay ka dhigtay shacbiga Soomaaliyeed dad baahan oo dadkoodii ka gacmo xiran taasoo inay siinaysa sawira dal laga guuray oo gamaahirig jooga ayna isugu harayaan sabool aan wax badan haysanna madax kaalmo shisheeye jidgooyo u dhiganaysa iyo quus taagan imaanshiga xukunka ee madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Soomaaliya u rogay jiha kale oo sida looga soo laaban doono ay adkaanayso wasaaradda qorsheynta qaranka oo ahayd howlbowlaha jihaynta mashaariicda horumarineed waxay qayb ka noqotay tiro wasaaradaha oo labadii sano ee la soo dhaafay u burburay si aan filasho laga qabin mashaariicaha horumarinta ayaana laga dhigay aag loo adeegsado siyaasadda lagu kala aragtida duwan yahay qaarkoodna hay'adaha ayaa la weydiisay lacag cadaan ah si mashaariicda loo fuliyo qaar waa la musuqmaasuqay taasoo sii abuurtay in Soomaaliya ay tahay dal fashilmay oo aan waxba lacag la siin karin 12 December ee sanadkii 2024 hay'adda horumarinta Mareykanka ee USAID waxay ku dhawaaqday 29 milyan oo dollar oo lagu taageerayo mashaariic horumarineed oo laga sameeyo Soomaaliya laakiin la marinayo hay'ado caalami ah hadda dhawaaqaas waa isbedelaya sababtoo ah Trump buugiisa kuma qorno in Afrika iyo dal aan waxba ka soo galin la siiyo taageero dhaqaale iyo mashaariic horumarineed taasoo si xooggan u saameyn doonta Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo waqtiguna ciriiri ku noqon doono shisheeyuhuna dayrin doonaan ugu dambeyn dawladnimada oo hadda hoggaankeeda haya madaxweyne Xasan Sheekh ee xilligan jirta sida ay mucaarad ku qabaan waa madaxweyne isku haya dhammaan xilalkii fulinta ilaa baarlamaanka waa madax ka nool kaalmo shisheeye sugaysa amnigeeda ciidan Afrikaan gacanta ku hayaan una baahan taageerada dibadda haddana aqalka cad oo halka laga jaangooyo siyaasadaha dunida inteeda badan waxa yimid Donald Trump oo aaminsan in dalka saaba isku tashado tan waxay Soomaaliya uga dhigan tahay dal la ilaawi doono aysan hogaamiyaasha siyaasaddu u diyaarsanayn inay ugu yaraan aadaan jihada in la caymiyo dalka lagana samata bixiyo duruuftan hadda taagan oo halis xooggan laga muujinayo waxa ka dhalan doona laga soo bilaabo 2006 ilaa hadda 2022 la soo gaaray waa lacag ka badan 3.3 bilyan oo dollar oo ay dheer tahay 3 sano ee ugu dambeysay oo kor u dhaaftay nus bilyan dollar taasoo aan ku jirin dhaqaalaha Mareykanku ay ku bixiyaan dhanka ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkiina dhaafay hay'adda Mareykanka u qaabilsan gargaarka dibadda ee USAID ayaa la saxaatay dawladda federaalka mashaariic horumarineed oo lagu fulinayo lacag ka badan 68 milyan oo dollar balse hadda wax badan ayaa ka soo laabanaya aagan maadaama Trump go'aamiyay in gabi ahaanba kaalmada USAID la hakiyo oo la joojiyo isagoo eegaya in dhaqaalaha Mareykanku uu isku filnaysiiyo oo aan loo baahnayn in dibadda loo saaro Soomaaliya uma wanaagsana dhawaaqa Trump